sida ay ogaatay Galen Media dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshay bilihii July, Agoosto iyo Sebtembar ee sanadkan saanad iyo hub ciidan oo aan marin dhammaan hanaanka geedi socodka hubka la imaanshaha dowladda federaalka ee isku raacsan yihiin golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo ka yimid dalal kala duwan oo madaxweyne Xasan Sheekh hub iyo taageero ciidan u weydiistay. warbixinta waxaynu ku eegaynaa 5 arrimood oo ku wajahan hubabkan tagay Soomaaliya iyo qaabka kaydintooda. qorshaha gaarka ee madaxweyne Xasan ee Masar iyo Uganda. bilihii July iyo Agoosto madaxweynaha ayaa booqday dalalka Masar iyo Uganda kuwaas oo labadaba weydiisay taageero hubeed sida ay qirayaan qaar ka mid ah xubnaha wafdiga dalalkaasi booqday iyadoo mid ka mid ah khudbadihii uu jeediyay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni si cad uu ugu qiray madaxda Soomaalida inaysan awoodin inay dhaqaale ku taageeraan ciidamada dawladda ama mushaarkooda ay bixiyaan balse ay rasaas iyo hub kooban u heli karaan. hadal jeedinta Museveni iyo xogta cusub ee cadeynaysa hubka ka yimid ayaa isfasiraya taasoo ka marakacaysa in Uganda ay bixisay hub badan oo gacanta dawladda federaalka galay kaas oo aan soo marin hanaanka hub keenida lana geynin kaydadka dawladda. xog baaris iyo dabagal aan sameynay waxaan ku ogaanay in bishii Agoosto aan ka soo gudubnay Muqdisho laga dajiyay hub ka kooban 85 qore oo ah nooca ay Soomaalidu u taqaano dhashiikaha kaasoo loo adeegsado in baabuurta lagu rakibo. 2 konton ilaa 60 qore oo ah nooca boobayaasha culus ee ay Soomaalidu u taqaano PKM oo yana la geeyay Muqdisho. 3 680,000 oo rasaas ah isuguna jirta noocyada qoryaha kala duwan ee AK47 PKM iyo dhashiika ayaa yana ka mid ahayd shixnado huba oo tagay Muqdisho. hubkan waxaa caasimadda geysay dawladda Uganda oo kaliya ayadoo lagu soo qaaday si loo qoriyo mid ka mid ah duulimaadyadii diyaaradeed ee uu la socday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana la geeyay caasimadda Soomaaliya. 2 hubka Uganda iyo halka lagu kaydiyay sidaan ku ogaanay xogta aanu helnay hubkan waxaa lagu kaydiyay kayd laga sameeyay gurigii madaxweyne Xasan Sheekh deganaa intii uu ahaa musharaxa madaxweyne oo ku yaala xayndaabka garoonka diyaaradaha loomana ogolaanin taliska ciidanka xoogga dalka inay arkaan ama diiwaan geliyaan. Masar iyo hubka laga helay maalmo kadib hub kale ayaa laga keenay Masar wuxuuna tagay Muqdisho waxa ay Qaahire geysay Soomaaliya 1400 ilaa 1600 oo qori oo ah nooca AK47 ee ciidanka lagu hubeeyo. sidoo kale qoryaha masaarida waxa uu heliyo kumanaan sanaadiiq rasaas ah oo tirooyin jaango aanan ka helin balse ila xoogaala ay ka dhigayaan wax ka badan 100,000 oo rasaas ah waxaana lagu dajiyay ama la geeyay guriga madaxweyne Xasan Sheekh oo kareysna xaafadda Mirnaayo ee degmada Cabdicasiis halkaa oo uu saldhig ka dhigtay maalmihii bishii Abriil ee sanadkii 2021 waxaanu ogaanay in dhammaan saraakiisha ciidamada taliska xoogga dalka iyo qaybaha saadka ay og yihiin hubkan in la keenay gudaha caasimadda balse waa loo diiday in la diiwaan geliyo laguna wareejiyo kaydadka dawladda ama taliska ciidamada xoogga si ay uga mid noqdaan hantida ciidamada xoogga dalka. 4 maxaa madaxweynuhu ugu talagalay hubkan in la qariyo sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo muhiim ah madaxweynaha ayaa go'aamiyay inuu tababarto ciidan dhan 1200 askari oo ka soo jeeda jifo hoosaadkiisa 200 ee ugu horeysay ayaa lagu tababaray xerada Balidoogle ee ay gacanta ku haysa dawladda Mareykanka. kolkii ay soo dhameysteen tababarka ayaa lagu daray guutada madaxtooyada ee Muqdisho oo ay hadda ka shaqeynayaan. hubkan la keenay Soomaaliya ayaa xadgudub ku ah hanaanka cunaqabataynta dalka iyo habka dawladda federaalka ee hub la imaanshaha waxaana reebanin hub aan ku jirin gacanta dawladda iyo kaydadkeeda uu yaalo gudaha caasimadda sidaas oo kalena aan soo marin hanaanka keenida golaha ammaanka iyo Soomaaliya isku raaceen kal hore. 5 walaaca iyo baaritaanada cusub qaar ka mid ah hay'adaha la socodka cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya ayaa bilaabay inay baaris ku sameeyaan dhammaan hubabkii ugu dambeeyay ee soo galay gacanta madaxweynaha kuwaas oo ay qaarkood qoreen warbixin hoosaadyo ay ku cadeynayaan in hubabkan loo adeegsanayo sifo aan sharci ahayn oo la geystay goobo guryo ah oo ka baxsan xarumaha dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoo aan la aqoon ugu dambeynta sida loo isticmaali doono. ma ogtahay application-ka Baysi inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta. Baysi waxa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo Ameerika. haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store.